kulankooda caadiga ah ee maanta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. waxaana kulanka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya hortagay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahim ayaa xildhibaanada u sharaxay akhrinta koowaad xisaab xirka 2018. Bismillahirrahmanirrahim. mudane gudoomiye mudanayaasha iyo marwooyinka golaha shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda wasaaradda maaliyadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane gudoomiye sida uu qabo qodobka 124 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xeerasaadka golaha ee nambarkiisu yahay 102 waxaan golaha sharafta leh hor keenay xisaab xirkii sanadkii 2018. xisaab xirka 2018 waxaa loo diyaariyey qaab waafaqsan sharciga maamulka maaliyadda dalka iyo qodobka iyo sharciga nambar 2 sharciga xisaabaadka. sidoo kale waxaa si buuxda loo waafajiyey shuruucda iyo hab xisaabaadka caalamiga ah ee loo yaqaan International Public Sector Accounting Standard marka la soo gaabay la yiraahdo IPSAS 2017 si waafaqsan qodobka 25aad 55aad iyo 156aad ee xarfaha ah ilaa ha ee sharciga maaliyadda iyo xisaabaadka dowladda ayaa xisaab xirkan la waafajiyey. xisaab xirka 2018 wuxuuna ka kooban yahay dhammaan xisaabaadka xogta macluumaadka daruuriga u ah soo bandhigidda natiijada iyo hirgelinta miisaaniyadda sanadkii 2018 iyo weliba isbarbardhigga ku talagalkii iyo natiijadii dhabta ahayd ee dakhligii iyo kharashkii dowladda ee sanadkii soo dhaafay 2018. ugu dambeyntii kulanka xildhibaanada waxaa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. dhamaystirka ahliga midowga Afrika ee doorista iyo u gargaarka barakacayaasha Afrika waa istinaa maran oo idin ahliga midowga Afrika hore loogu soo shaqeeyay sanadka haysataa ayagoo macsan 2011 laga soo shaqeeyey dukumiintii waa haysataan guddiga loo saaray guddigii uu ka soo shaqeeyey dukumiintii waa haysatiin guddigaas wuxuu ka koobnaa 15 qof 15kaas qof ee waagaas ka soo shaqeysay baarlamaankii 8 xildhibaanada